Bursida TV hadday tahay markii koowaad aad soo boqotaan subscribe ta nagu saximaamada muuqaalka noolay gareeya xagga Facebook page-ka dad inaga daawanayso waxay nagu qoranayaan lacag hadday tahay markii koowaad aad soo boqotaan soo fiiro gareey muuqaalka noolay gareeya noo share gareeya la wadaaga asxaabtina dhammaan muuqaalka gaarsiya cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo meel kasta uu joogo bal waxaan doonayaa inay ka soo hadalno garaadlaw garaajamac garaad cali oo ku baaqay nabad bila shuruuda wuxuu dhibaatadii ka dhacday magaalada Ceergaabo aad iyo aad baan uga xunnahay dhibaato intaas ay nagu filnaato dadkii dhintay inta ay nagu filnaadeen waxaan ku baaqaynaa nabad bila shuruuda waxa kale garaadlaw garaajamac garaad cali wiili waxaan wafti isimaan u soo diri doona magaalada Hargeysa nabad baan ku baaqaynaa hadaan nahay garaadadii beesha dhulbaanto nabad bila shuruuda nala qaata oo xabada hal joojiyo oo dagaalka hal joojiyo aymu ku cabaadaya garaadlaw garaajamac garaad cali warintee u baaqiyo nabada leedii soo diray oo salaadinta habar jecel baaqiyo nabada soo diray oo salaadinta garaxajis ay baaqiyo nabada ay soo diray inta dhagtaana ka maqasheen ayaa dhagtaana aad ka sii daysay markii magaalada Ceergaabo dhirbaaxooyin culus iyo jab xoogan leedii kaga dhuftay miyaad imika garaadow aad miirsatay imika cabaadka ka dhacaya iyo baroorta ka dhacaysa garaadlaw garaajamac garaad cali malayn maysan war wuxuu leeyahay nabad bila shuruuda ayaanu ogan lahay nabadda nagala qaato dagaalka hal joojiyo war dhibaatayntaas ay nagu filan waa dadkii inaga dhintay inta ay nagaga eekaadaan war nabadda nala qaato walaalayaalow wareetooba adiga nabad u laga bariyay dhulbaanta xabadu markay futada ay kaga dhacdo jab xoogan la gaarsiiyay ciida afka dhulka loo daro ayuun bay horta dhulbaanta miirsada inta kale ma miirsadaan garaadaduna way yaqaanaan nabadda beenta ay ku mashquulinayaan Somaliland ilaa nabad baan ku baaqaynaa nadaaya walaalayaalow halka hoosana oo lagala dagaalamaya war nabadda beenta mar walba garaado aad ku soo baaqaysaan media aad kaga cabaadaysaan war ma jirto wax nabadi ma jirtee damaca idinka soo galay magaalada Ceergaabo xabada ka bilaamatay waxay ku dhamaan doontaa yoocada magaalada Laascaan waa meelo soke ilaa yoocada xuduudeeda aanu tagayno dagaalkaas waa soconaya idinka leedinka taag way war nabad baa naas la nuugale war walaalayaalow war nabad baan idinku baaqaynaa walaalayaalow dagaalka daay war dhibaatada daay war dagaal wiil kuma dhashay wiil un baa ku dhintay war nabad qaata ismo may ay yiraahdeen annagu waxaan u taagaynaa magaalada Ceergaabo gobolka Sanaag annaga iska oo waxaan qabsanaynaa magaalada Ceergaabo ayaanu qabsanaynaa maxaa idinka raacay inaad meedadkiina iyo dhaawacyadiina aad kaga yaacdaan in hubkiini la qaniimeysto in gawaadhidiini la qaniimeysto ayaa ka hadhay cabaadka ka dhacaya garaadadii beesha dhulbaad kolba garaad baa ooyaya kolba garaad baa soo barooranaya kolba garaad baa ku soo baaqaya nabad bila shuruuda ay leeyihiin waa daro in garaadadii beesha dhulbaantay sida ay u ooyaan xaq hoosana ay ka wadaan munaafaqnimo wariteyn baa nabadda leedii ka bariyay u dhulbaanta u diiday horta dhulbaanta wuxuu miirsadaaba afka dhulka marka loo diro habar jecel wuxuu ku miirsaday maalinkii galgal iyo shangeed ya dhulbaanta jabka xooga la gaarsiiyay Cabdimadoobena lagaga dhaawacay saraakiil badanna lagaga dilay dhulbaanta waa markiiba soo hadlay garaad Cabdirasaaq Soofe waa kii soo hadlay oo intiisa ka baxay iyo shubanka ka baxay malayn maysan maalintii dhaweyd dib qarax meesha la yiraahdo iyo dhuun madare iyo magaalada Ceergaabo marka lagu xasuuqay ee jab xooga la gaarsiiyay huwantii dhulbaantay waa kuwa garaadadii beesha dhulbaanta soo ooyayaan soo cabaadaya garaadlaw garaajamac garaad cali waa ka kule waxaan ogolahay nabad bila shuruuda ayaan ku baaqaynaa dhibaato intaas ay nagaga filnaato dadkii dhintay inta ay nagaga filnaadaan dad kale yaanay naga dhib dadka aad imka doonaysaan inaad hadaba dabka aad ku soo gurtaan dabka aad ku soo shidaysaan meelaha ka soo dawarsanaysaan soo maaha huwanta ku soo guraan dilaana waan idin sugaynaa la soo dhaqsada dadka halka aad ka soo ururinaysa garaadlaw garaajamac garaad caliyow aad doonayso inaad ku soo biimayso gudaha magaalada Ceergaabo adiguna dhakada aad kaga baaqisid nabad bila shuruuda war Soomaaliland way fahantay beenta iyo munaafaqnimada ay wadaan 14 garaad ee mujrin ee dhulbaantay waa la fahmay Soomaaliland shacni bay fahantay iyadna nabad bila shuruuda ay ku dhawaaqaysaa xagga hoosana waa leedinka dhamaynaya oo dagaalka xagga hoosana waa ka soconaya inamada yaryar leediin waa khalasiyo waa jamaahiir aad ku soo wanjalaysaan afka ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo afafka ciidamada manadiga SSB iyo G36 aad afafkooda ku soo wanjalaysaan wallahi afkum baa la iska marinaya one ticket weyn bay wataan
caruurtaa yaryar ee halkaa lagu soo shubayo ee xaabaan la doonayo in loo shido yaa wallaahi wan tigir bay wataan soo noqosho male kuwii hore waddada ay mareen ayuunbay marayaan kuwa yara imka hadda lasoo uruurinayo ee hadda ay soo naanaabayaan walow dhulbaanta aanu dagaalba imka aanu sooba wadinbay bishu xilliga ay dhammaadka ay tahay ilaa meelaha bishu markay marayso 20 iyo 21 iyo xilliyadaasunbuu dhulbaanta dagaalka soo qaada xilliyadaana islaamiyii dibadda lagu qeyliyaa lacag soo diraa hayaa dagaal baanu ku jirnaa markay lacagaha soo dhex mariyeen dhiliqda ay maqlaan garaadada beesha dhulbaantu afkaa juuqda gaba wicid allii cid ay ka hadli karaan waaba yaraatay ma jirto yustay ka laabaan haye waxaasoo dhan waxa weeyaan waxa weeyaan yaan laydin fahmi way ku dawrsanayaan huwantiina shacdooday fahanto oo kuwa la dawrsanaya huwantiina lacaga soo diray dagaal baan ku jirnaa hebel baa la haysta hebel baa dhaawac soo diray ayaay badadada oo kuwa haya haye imikana maanta garaadadii beesha dhulbaanto iyadoo bisada ka yar ayay waxay baryootamayaan garkii hayaan nabad baanu doonaynaa nabad bilaa shuruudaan nurana nadaaya walaalayaalow dagaalka laga joojiya cagihii bay Somaliland haystaan waa been garaadada beesha dhulbaanto munaafaqnimo iyo kaarta kale ayay wadaan maadaama huwanta hadda dhowr jaho oo dagaal lagaga furay ee Somaliland u fikirtay huwantii kolba meel lagu mashquulinayo huwantu iyadu xoogeeda waxay saaraysaa meelun bay xoogeeda iskugu geynaysaa furimii kale buu hoolayo meegagleeyo gondaala iyo oogiyo waxaasoo dhan way wada furayi haye huwantu xooga maalintii dhaweed waxay iskugu geysay dagaalkii maalintii dhaweed ka qarxay dhuur madare iyo dib qarax iyo wixii halkaa ka sii shisheeyaba aagaaba huwantu waxay iskugu geysay magaalada ceer gaabo ayay iskugu geysay awoodeedii oo dhan laakiinse maxaa ka raacay ha iskuwa geysabeen ciidankii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ciidamadii SSB ee ciidamada birta calaashanaya iyo wiilashii qacanta fududaa ee G36 ee libaxyada ahaa ee sida aarka wax uga bililaqaysta bariga ee kaynta ku jira ee la iyo waxay ugaarsadaan ayaa dhulbaanta maalintii dhaweed jab xoogan gaarsiiyay ta ku dhacday dhulbaanta maalintii dhaweed malayn maysaan heer waxay gaadhay in meedadkoogii iyo raqdoodii iyo dhaawacyadoodii bay ka yaacaan maxaabisaana loo qaniimaysto hubahaana loo qaniimaysto gawaadhina iyo hub iyo tiknikaba waa laga qaniimaystay maalintii dhaweed wiilal qacan fudud ayaa helay cabaadka ka dhacaya garaadjaamac garaad cali mujrinkii ugu weynaa ee dhulbahanto ee isku sheegayay garaad guud baan ahay cabaadka ka dhacaya wallaahi bilaahi malayn maysa saasii u ooyeen garaadadii beesha dhulbahanto fuuxisa ku xidhmatay bal in yar muuq waxa uu baryootamaya uu jilbaha Somaliland haysta wuxuu leeyahay walaalayaal dagaalka naga daaya dhibaato intii ka dhacday magaalada ceer gaabo haynuugu filnaato dadkii dhintay intaas haynuugu eedkaadaan waa kamaanta ka ooyaya magaaladii laascanood ayuu garaadjaamac garaad cali uu ka ooyay garka uu Somaliland haysta wuxuu waxaan u soo diri doonaa ismaan u soo diri doonaa magaalada Hargeysa nabad aynu isla qaadano waa nabad bilaa shuruuda oo kuwa saw ooyay xarku saw dhaafi wariteon baa nabad leedii ka bariyay wariteon baa leedin laha war nabad qaata war walaalayaal dagaalka wiil kuma dhashay wiil baa ku dhintay war walaalayaal nadaaya oo dhibaatada naga daaya oo nabad qaata oo diidayeen iskibrinayeen jamaahiir baana khalasiyaalna wati maalintii dhaweed lagu qaawiyay dhuun madare iyo dib qarax wixii ka raacay dhulbahantay wallaahi malayn maysaan casr lama ilaawana markii lagu dhigay dhulbaanta miirkiisu waa maqnaa markuu dagaalka u galay hadda wuu miirsaday hab irbadii maxamed joojintaayada waxa ku dhuftay ciidamada G36 iyo ciidamada SSB iyo ciidankii qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa wallaahi dhirbaaxooyinka culus ku dhuftay sida maalintii dhaweed loo galay waa la hurgufay waa tamaanta keentay in garaadjaamac garaad cali mujrinka ugu weyn ee dhulbaanta ee isku sheega garaad guud baan u ahay dhulbaanta waa kamaanta ooyaya ee jilbiya haysta Somaliland ee baryootamayala isimaan soo diraya nadaaya walaalayaal nabad baanu doonaynaa nabad bilaa shuruuda dhibaato inta haynuugu filnaato oo kamaanta barooranaya haye adduunku waa harkaa labadiisa kale war inteen bay salaadiinta habar jecelo iyo kuwa garxajisba ay ku baaqayeen nabad ee lahay war nabad qaata war nadaaya war cid kama xoog weynidiin war cid kama hug badnidiin war cid kama ciidamo badnidiin war nadaaya war nabad aynu ku wada noolaan deegaanada inaga wada leh war nabad aynu ku wada noolaan way diideen garaadada dhulbaad dhagtaan oo laga maqlay taana waa laga sii daay
maxaa se raacay maalintii dhawey maalintii kasoo horeysana galgal iyo shangeed wati afka ciidda dhulka loo daray haye dhulbaanta mar waliba afka ciidda dhulka waa loo daraya wareedhe adun baa laisku kaa soo raacay waa loo soo jeestay Soomaaliland waxay maanta ay ku mashquulsan tahay waaba yaraatay ma jirto maanta waxa la eegayaa waa laascanood forum to yoocada wax kale lama eegayo wallahi intaan yoocada aan togino oon ku noqonayno oon calanka tawxiidka saa uga babinayno oo calankan xumeego garada ee dameerku ku sawiran yahay aanu meesha aanu ka xaqayno wallahi dagaalku waa soconaya wax nabad la oo la yiraahdo lagu baaqi karo oo haba yaraato oo la qaadan karo oo haba yaraatay ma jirto garaadada waxay wadaan munaafiqnimadoodii iyo beentoodii iyo fataalnimadoodii war hadday tahay markii koowaad jirka youtube-keena soo boqotaan subscribe nagu soo cimaamada muuqaalka noola gareeya noo share gareeya la wadaaga asxaabtina inta muuqaalka xigo ku kulmi doono walaalkan ya lacabdo isla saaye fi amaan